xilligii xukuumadda ay Soomaaliya ka jirtay waxa ay lahayd warbaahin afka dawladda ku hadasha iyo wakaalada warar laakiin markii dawladii ay duuntay waxa batay xarumaha warbaahinta sida gaarka loo leeyahay iyo meelaha lagu barto dad badan waqtigu uma aanu saamixin intii ay ku sugnaayeen Soomaaliya inay bartaan saxaafadda dalkiina waa ay ka soo baxeen markii ay u adkeysan waayeen colaadaha ka jira gudaha Soomaaliya wadamada dadkaasi ay yimaadeen waxa kamid ah dalkani Kenya wana goob saxaafadu xor ay ka tahay shaqadeeda iyo barashadeeda macadka dalsan waxa uu kamid yahay goobaha lagu barto saxaafadda waxaana inta badan wariyaasha laga dhisaa inay bartaan xeerka saxaafadda iyo anshaxa ay leedahay si ay u dhisaan aqoonta ay saxaafadda u leeyihiin waxaana intaasi u weelisa barashada luuqadaha haddaba xaflad ay ka soo qayb galeen culimaaudiin waxgarad aqoon-yahano iyo barayaal wax ka dhiga jaamacadaha dalkani Kenya ayaa waxa lagu qabtay Gala Hotel waxaana ujeedka xafladu ay ahayd in halkaasi lagu soo bandhigo aqoonta ay ardayda wax ka barata macadkaasi iyagoo ay soo bandhigaan iyadoo halkaasi lagu qabtay tartan aqooneed ardayda u dhaxeeya Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib waa madaxa wararka iyo barnaamijyada TV-ga Royal qaybta Nairobi waana maamulka macadka dalsan waxaana halkaasi uu ka jeediyay qiimaha ay waxbarashadu leedahay iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay saxaafadda iyo barashada luuqadaha waxaan nahay dhalinyaro jeclaysatay in bulshadooda ay kaga qayb qaataan kaalinta kaga aadan waxbarashada waa dareemi kartaan mas'uuliyadda ah in dad meel la isugu keeno wax la baro inay adag tahay waxaa ku jiri karaa qaar dabeecad fiican waxaa ku jiri karaa qaar adag inkastoo ilaahay qof kastoo si kasta u dhalin karo ciyaalka xitaa guriga hadii lagu hayn waayo waxaa loo soo diraa iskuullada iyo weliba goobaha wax lagu barto iyadoo taa jirto waxaanu dooranay inaanu ka qayb qaadano waxbarashada iyo weliba muhiimadda ay leedahay mar kale waan idin mahad celinayaa waqtigana uu yaryahay waalidiinta ka soo qayb galay iyo weliba kuwa caruurtooda keenay iskuulka intuba way mahadsan yihiin waxaan sidoo kale rajaynaynaa in isbedelo badan iyo weliba waxyaabo badan aanu ku soo kordhin doono nidaamka waxbarasho ee xaafadda Islii ka jira asaasitaankii macadka dalsan ayaa waxaa si faahfaahsan ka soo qayb galayaashii xafladaasi ugu sharaxay Burhaan Maxamed Jaamac Garaso agaasimaha macadkaasi oo aadan dheer dabcan waxaan rajaynayaa asxaabtiisa kulli baarli ugu horeyso وهذه مهد علينا قابك أنه استنسوك ما أنتنا سمعتنا إشرفتنا كجبنا هذيك أيها صلوها اللي وين أسكو ونمسك حسين آر وقدومية كحجينك جناعسة الصومالي دا إسلي وحنا وكمده هاي مرت شرفتي حفلة داسي كسوغيب غشاي مركا وحنقو قبابينيا حوقي أمد الصوماليات وإنكا أخلقي أمد الصوماليات وإنك مركا أهو هيسننا إن عدل يرون نقنيسان وقتينا قالقا يونيقو دافع مدك عليه وحاد ميل قاديسان مركا عد إلهيني أبورتي شروطي وينو قبتين أو مسلنا عد كسر بحضان ما خساريسان agaasimaha idaacadaha mataanaha ah ee Frontier FM iyo Radio Salam Cabduqaadir Jeelaani ayaa isna ka soo jeediyay hadallo kooban oo uu kaga hadlayay barashada saxaafadda iyo qaybaha kale ee cilmiga aruug waxaan ahay bahda saxaafad ayaan jeclahay inaan ka hadlayo waxay tahay labaatan sano waddanka burburay ee haddaan saxaafad jiri lahayn waxaa dhici kartaysay in maanta meesha la taagay yahay wanaagga iyo wixii ka soo bidhamay aan la gaar lahayn maalin waliba saxaafiga isagoo u dhabar adeegayo hawsha la dilayo la jilbilayo la xirayo waxa uu taagay yahay inuu xaqiiqda ka gudbiyo bulshada caalamka la gaarsiiyo si Soomaali wax lagu qabtay jiil soo koraya waxa ardaydii iskuulkaasi ay goobta ku soo bandhigeen riwaayad ka turjumaysa qiimaha waxbarashadu ay leedahay that I am 42 years old. I have 5 children with me. And Ali and Hassan, they are 12 and 14. Samsam and Zainab, they are 9 and 5. Ali has a very bad malaria. So I beg you to help us some anti-malaria tablets. This camp is a healthy project.
iskuulka dalsan waxa uu ka mid yahay iskuulada ku yaala magaalada tan Nairobi waxaana inta badan mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadan ay sheegeen inuu ka mid yahay iskuulada keeni kara in ay soo baxaan dad badan oo saxaafadda khibrad iyo aqoon u leh Sucaad Mire Maxamed Royal TV Nairobi